dhibaatooyinka shakhsiga cabashada qabo oo gudaha Puntland ilaa anaga gudaha Puntland ma falaqayn karna mugta cabashada shakhsiga inta wax looguma qaban kara mugta dadka intee meelahan imaadaan siyaasadda nooga dhigayo ee horumarkii iyo nabadii ay ku jireen rabo inay ku bedelaan baska sahal inay raacaan wax ay u guun kartaa rabna inaan ogaano ayagoo maqaamkaas Puntlandina uma imaanayaan Puntlandii ay ka tageen uma imaan doonaan يعني نوع Puntland ay ka tageen ay hadda Saciid ku haystaan nooc ka fiicanna ma rabaan noocaasna ma rabaan wax ka hooseeya inay u soo laabtaan ay rabaan oo cidla ah taas waa waxaan ka walwalayna moogta annaga Puntland inay dhibaato gaarto waxaan u diideen waxa waaye Soomaaliya dhulkii kale oo dhan baa dhibaato ka socota moogta marka waxyaabaha maad galmudug ka hadashaan iyo Hirshabeelle saaxiibo badan ay nagu dhaleecayaan oo waxaan uga hadleen waxa waaye dhulkan waa dhul nabad oo dhul dalxiis ah dhul shidaal leh dhul Soomaaliyeed ummad Soomaaliyeed ku nooshahay ugu yaraan maadaama meelihii kale carqabad ka jiraan meeshan u qixi laheen waa dhulna waa ka gadana moogta asigii marka waa wax jeclay naga tahay wixii yaraay ee noo haray ayaa meeshaas زعيمو سؤال أرمزان أنك ما dadka reer Puntland u dhashay qodad kuwa u dhashay ayaga u dhashay sababta ay u dooranayaan maqaamka soo samaxay tahay qodad macna waysan fahmaynin de waa meeshan ka soo wada moogta su-aasha horan su-aashaas marka hadda soo gaartay ka jawaabo markuu saa'im dhamaysto tan hore aan isku dayo ciidamadan iyo arrimaha hadda aad sheegtay oo in la tababarayo ah iyo waxa dawladdu siday u naxsan tahay ilaha sirdoon ama amniga ama dadka amniga ka hadla Soomaaliya way sheegayaan si sax u sheegayaan Somaliland iyo nimanka hadda Israel xiriirkii dhaxmaray oo muuqda micnaha mid hoose inuu yahay ama mid meel hoose gaar inuu yahay dhulkeedii inay soo ceshtaana ka go'an oo istaraatiijiyad military oo dhammaystiran oo aanan laba cali isweydiinaynin in la qaadaa u qorshaysan meesha ay Somaliland wax ka bilowdeen way cadeynaysaa taasi waa wax Somaliland ku keenay in Israel aado Israel dabcan in ay ka jawaabto arintaas waa ka go'anta marka dhulkeedii inay soo xirato oo goon u gasodkeedina hadda uu noqdo mid xuduud ahaan iyo ku dhawaaqis ahaan bay isleh taa dawladdu iyadoo ka jawaabaysa dareemaysa dhibaatada meesha ka soo socota waxa ka go'an iyadana inay difaacdo nimanka la yiraahdo SSC Khartoum ama dhulkaasi waqooyi bari ee Soomaaliya aragtida lagu difaacaya marka maxay tahay mid waa anti majeerteenism wax la hayo in la buufiyo waa la buufiyay qarash badan ku baxay labo argagixisada in la adeegsado tusaale ahaan madaxweynaha waraysigii uu siiyay al-Arabiya luqadda Ingiriisiga waxa uu maleynayaa bilowgii sanadkan wuxuu sheegay in xataa argagixisada ay aadi doonto Somaliland haddii Israel meesha ay soo farageliso taasoo micnaheedu ah ama dareenkiisu ahaa si kasto oo noqoto in dalkan lagu difaaco waa lagu difaaci karaa dhinaca kale hadda ka keenta marka maadaama ay taageero ka helayso Somaliland Israel dhulkeedina ay soo ceshanayso waxaa meesha ka cad dawladda iyo al-shabaab ama argagixisada oo wada socda ayaa meeshaasi ka dagaalamaya Puntland iyada in ciidamadan lagu sii diyaariyo dawladdu inay guluf dagaal wado waa dareen ah baa la muujinayaa iyada waa la muquuninayaa awoodda xoogan oo dawladda ah oo argagixisada la hadii ay meesha imaado arrimaha sool iyo kama hadli karto marka Puntland iyada waxaan weydiinaynaa halista meesha ka soo socota aragtideeda mowqifkeeda muxuu yahay Puntland ma cadeyso in ay la baqato aragtida Somaliland ay qaadatay sidii isku difaacayso ama uga falcelinayso wada ama Ethiopia aragteeda markay timaado ama tan Israel markay timaado falcelinta ay bixinayaan Puntland maxaa u diido markasta ay nabarada ay ugu nugushahay u sugaysaa in korkeeda mar walba isbedelka lagu sameeyo so taas asaal laga rabaa Saciid Cabdullaahi Dan iyo kooxdiisa go'aanka ay ka qaataan waayo nimankan waxa ka go'an dhulkan inay kheyraadna ka baartaan Soomaaliya la kala gooyayna inay meesha ku dilaan waxayna adeegsanayaan Turkiga marka quwado waaweyn meesha isku dagaalayo oo horana loo saadaaliyay 2025 baaba la saadaalinay meeshan falcelin weyn oo aad u foolxun ka imaanayso arinta markii hore dan ku soo laabto oo soo gabagabeynaya
dadka reer Puntland maxaa bas deegaanadaasi baskii in la saaro oo maqaamkooda hoos loo dhigo maxaa kalifaya oo qiimahooda inta uu kala weynaan waaye de su'aal aad u fiican waaye waxay ku fiican tahay horta nimanka wasiirada ah madaxda noqda ee aroosyada laga wacayo ee Puntland dadkii siyaasadda Soomaaliya miiskeeda goyn jiray dadkii hormuudka ka ahaa in aroosyo la geeyo maxaa sababay xoosh iyo in la weydiiyo horta ku fiican tahay laakiin aan aragtideeda daayna waa sheegay haddana waa ku celinaya Puntland si loo dhaawaco dadkeeda iyo qabkeeda iyo hamigeeda iyo damaceeda iyo hormuudka ay Soomaalida u yihiin waxaa la adeegsaday talaabooyin marka hore aanan dadku intooda badan fahmin oo ah in siyaasigaba loo arko midkooda liita hogaamiye in loo arko midkooda liita midkooda dhagaxyeenaya ama kan fawdo ka samayn kara ama boosaaso ninkii dhibaatooyinka ka sameeyey oo aan weligiis xataa boolis Soomaaliyeed noqon oo ciidamo gaar loo leeyahay maamulay oo aanan iskuul u tagin xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo midka booliska aanan garanaynin baa subax inta darajo loo saaray gabar lagu daray baa taliyihii booliska Soomaaliya waayaa la yiri ma waxaa laga rabay ninka inuu booliska Soomaaliya wanaag ku soo kordhiyo maya ma waxaa laga rabay in ciidamada booliska Soomaaliya xiriirkooda wada shaqeyntooda dowlad goboleedyada inuu hagaajiyo tababaro inuu sameeyo amni inuu miyaa loo keenay Saciid Asad maya waxaa loo keenay dadka reer Boosaaso iyo reer Puntland in la tuso nin qamarji ah oo Mooriyaan ahaa jiray oo Xasan la socod inay haystaan haddii ay iswaalwaalaan in ninka ciidamo loo keenayo oo qax u bilaabanayo taasaa la tusay for 1 year kadibna maanta ficilkiyaa socda wixii laga digayay ama aragtidii la sheegayay ahayd sababta loo magacaabo dadka noocan oo kaleeta dadkooda in loo gumaado inay tahay hadda waxaan sheegaynaa oo qiyaasaynaa in dhibaatadaas ay dhici doonto hoosta ka xariiqe waxaa la gaari doonaa dadka mentalitigooda aan fahmaynaa waayo qof aanan karti lahayn aqoon lahayn maamul lahayn horumar lagu aqoon nidaam iyo dowladnimo lagu aqoon markii qor iyo qalin lagu dhiibo waa dhaci dil waxa ka sugi karto waxaan qiyaasaynaa marka Saciid Asad oo dowladnimada Soomaaliya oo Xasan hogaamiye hirgelinaya in dadkiisu uu line doono sababaha loo line doono oo hormuud ka noqon doono ya oo caadina loo arki doono aad ugu xumaa assalaamu calaykum زعيمو maamulka qolkan u hadlaaya idinka su'aashiina waa isu kindeyna qolkan waxay rabaa inaan u hadlo walaalayaal groupkiina hoos jooga oo 350 ka ah waxaa ceeb idinku ah horta shaashada inay 50 xataa ilaa hadda aysan gaarin dadka ugu badan oo hoos fadhiyana waa dareemaya dadka reer Puntland waaye isoo amin siin reer Puntland waxaan ka hadlayaa maya runta u sheegaysaa Allah idin barakeeyo farta ku garaacada qolka mise waa dhididaysaa farta ilmaade reyaalo horta ceebtiin ma caadadii waaye nadra aada u mahadsan tahay oo ku ogaa inaa garaac horta qolka shaashada u garaaca reer Puntland kow live goolka noo qarxay suuqalka u soo baxo labo lambarka saddexaad follow u dhaha wiilkan wixii aan follow u ahayn Saa'im iyo Suldaanna follow in la dhaho way mudan yihiin laana waanada ay reer Puntland galiyaan kuwa reer Puntland u dhashay ma galiyaan inta badan Saa'im iyo Suldaan waxay la hadlaan shacabka reer Puntland way hoga tusaaleeyaan dhacdooyin dhabay farta ka saaraan u malayn maayo wiil TikTok jooga oo reer Puntland ah inuu sida ay Saa'im iyo Suldaan u hoga tusaaleeyaan ee u hoga tusaaleynayaan marka waxaa intaa kaliya ku nagu caawiya inaan qolka noo garaacdaan inaan follow garaysaan ina Saa'im iyo Suldaan iyo asal follow garsa iyo walaasheen ma aragtay iyo wisil iyo walaasheen Aasiyo walaashii aan jeclahay ku soco Suldaan gabadheeda Aasiyan iyo follow garay okay زعيمو marka aad fiirisid awoodaha baraaca hal mar Suldaan saaxiibada qolka waxay raal ahaa qolka hadda markaan u imaano reer Puntland demo mar waa maadsan yihiin walaashii waa maasan tahay laakiin ilaa hadda way ka soo fakalaada wiilasha gabdhaha lagu daro arintaas naftarkeed mar kale dib ha loogu laabtay ilgaar ha lagu fiiraa dhiineed ما single باتين هلا ولا wonderful اتين ما single باتين wiilasha waxa loo fiiriyaa 4 sano hadda daba joognaay Saa'imo anaga adika halka wiil ee boosaaso laga soo waday gabar baa lagu daray gabdho wax ka badan wallahi hadda been ku ma sheegayo
gabdho wax ka badan aad istaahishaan xaqiiqada uma malaynayo sida maya xagee wiilashu joogaan wiilashu xagee bay joogaan way xagee joogtaan joogaan qurbahay joogaan qurbaha ka xagee midi yurub wasaabiir leeyihiin war maraykan wax jooga ma jiraan maraykan hadda imaanayna fiiri ya uma malaynayo saa'imo qof reer Puntland hal iyo laba u malaynaa oo intuu qol soo furto danta Puntland ka hadla ma u malaynaa marka aada u mahadsantiin wax kale oo idin dhihi karna ma jirto waa mahadsantiin kaliya idin dhihi karna ku soco sultan horta wax yar ma idinka dabageeyaa oo sheekada Israa'iil ma idinka dabageynaya ka socoto Maraykanka waxa hadda ma isoo maalin dhawto waxa akhriyay wax yar waxa akhriyay nin oo ahaa secretary of state secretary house of secretary oo ahaa Obama oo la dhaho Rehan Ismail ma la dhahaa waa Yahuudi aqalka cadu secretary oo ahaa Rehan Ismail ma la dhahaa marka wuxuu ka xumaa waxyaabaha uu sameeyay Netanyahu faragelinta uu farageliyay Soomaaliya uu Somaliland uu aqoonsaday ayuu wuxuu sameeyaa wax qalad ah marka hadii aan kuwa wareystay xildhibaana waxay dhaheen Aasiyo Minneapolis Soomaaliya aad ba looga taageersanaa yani awoodda Minneapolis yani state dan taageeradiisa ayaa dimuqraadigu Israa'iil uu ay safargashan yani waxa hadda sameeyay Israa'iil waa lagu jirtay Israa'iil ilaa 77 waxna baabiyay waa iyada laakiin in ay soo qaawiso way shoogeen waxayna isku soo qaawisay laba wax xamse oo siyaasadda waxba ka aqoon waa ka dheeri waa doqon oo aan xataa fakarin dhahayno wareede kuwii ka xooga badnaa yaa ka hadli waayay maxaad adigu Israa'iil cala maxaa u dhaleeceynaysaa kuwii ka xoog weyna ka xigay oo ka lacagta badnaa oo ka awood badnaa baa ka hadli waayay ma iska aamustid oo isha ka aragtay burbur baa tahay waliye ayagaa ku burburiye dagaalka hadda goorta qabsadaa lagaa tagay goormaad neefsata iyo maxaa la yiraahdaa Republicankii oo qabsaday labadaas sababay dimuqraadigu waa ka xun yihiin waxa uu sameeyay marka hadda waxaan ogaaday dimuqraadigu markuu dimuqraadigu joogi jiray ninka inay dhigi jireen waxaad kala qaybin Soomaali publicly ha kala qaybin ninkan wuxuu ugu soo giirtay hadalka xamse ay maxaa Xamaas taageeraya hadalka xamse ugu soo giirtay okay hadda laakiin haddii dimuqraadigu soo noqdo insha Allah lama arki doono waxaan reerkan iskiisahaya anigu ay doono reer Puntlandkan ku haya anigu marnaba Soomaalinimadayda ma iibsan karo mana siin karo ibna maaha Soomaalinimadayda islaamnimadeeda imaha Israa'iil inaan ku weydiiyo Israa'iil haday wanaagsan tahay maya hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo kuwii soo dhaweeyay baabaha ka dhigtay baraka cisay baabaha ka dhigtay maya hal su'aal aan rabaa inaan ku weydiiyo annagu marka ma rabno buuq إسرائيل أنا أود كم مرة لكن واحد ديدي هكذا ما كسافرسان عرب جماعة قرية عربت يبعتها يسوون نسوي جارسة وحلي بي أنت سوي جاري ما لسه كم مي مغلى سأورت مي مقشة واكو مغلى يا محاكو قسمة يعني وحاكو رواينا كويديو سوما إرجع سومالي مقع سومالي أدي هذا سومالي متيد كبر هربولان متيد يس marka dhehaysi Soomaalinimadeedu waa la kala dhantaalaya Soomaalinimada waxa kala dhantaalaya waxa kala dhantaalaya marka adiga tiraadi waxaan ahaanayaa waa go'aya usually marka qolkiina aan galo qolkiina markaan galo Puntland waxa ka hadashaan inaan anaga go'no wad ku haysaa maya hal dhiba idin fiiri horta hal dhiba idin haysato Soomaali inaa Muqdisho tagti Soomaali kuma noqonayso Soomaali sidaada Soomaali ku tahadeer إنا مقدشة الصومالية وكنا قلنا بكسو أي هرت سكرتا أريجا إرجع صومالي نمدوا قومية معها مقدشة صومالي مقدشة معها إرجع صومالي لقول هايو ويلك إثيوبيا جوجا صومالية ككينيا نود إست جوجا صومالية كصومالي إست جوجا صومالية
kan muqdisho jooga soomaali ah kan jowhar jooga soomaali ah kan jooga dhuusamareeba soomaali ah kan kismaayo soomaali kan puntland jooga soomaali marka ereygan aad victim ka u tihiin reer puntland oo ah soomaalinimadeena la rabaa in la dhantaalo soomaalinimadaada marna ma dhantaalmayso waxaa ku qanacdaa inaad gabar soomaaliyeed tahay oo ayna soomaalinimadu kaa lahayn wiilka muqdisho joogo iyo adiga inaad soomaalinimada u simantihiin horta ku qanac markaa ku qanacdid faiso may dadkeena haddii somalilan maya isu korta saaim anaga dhib gooni oo soomaalida kala haysan inaan haysto dhibkana haysta waxa way qolalkeena waxay goosteen aan go'no maxaa nagulshana geynaya dani muxuu ka doonaya aan go'no danigaana sanka naga marmarinaysid naga istaaji tafadaali gabadha waa lasoo harowsaday gabadha masingal baa tafadaali naga istaaji abaay danigaan aad dadka la hortahay taleefankeeda ma la wici karaa maya wicitaan annaga hal midaan fictam u nahay walaahi fiiri iyada iska daa cumar cabdirashiid haddaa hadda wareysatid cabdiwali caligaas haddaa wareysatid haddaa wareysatid cawid haddaa wareysatid qof walba oo reer puntland ah oo iliidka ah waxay ku dhahooyaan annaga soomaali hal qof oo fictam soomaalinimo u ah oo aan reer puntland ahayn ma jirto wiilka jubbaland jooga fictam ma aha wiilka dhuusamareeb jooga fictam ma aha kan jowhar jooga fictam ma aha kan xamar jooga fictam ma aha laakiin kan puntland joogo waa fictam waay maanta dhan wuxuu ku celcelinayaa annaga soomaalinimadeena annaga soomaaliyaa nahay cid naga soomaaliyeysan ma laha haddana reer puntland ana marka ku soco waxaa sameysaa faizu reer puntland kaarta idin sheegin isqeybiyo qolal kala duwan xataa taga dhibka jir waxaa hal meelaa u badantiin moogtahay laba mid dastuurka dhigayo soomaaliya waa ka go'i karaa deegaan dembi ma ahan dadkay ku xiran tahay deegaanka degan haddii la weydiiyo soomaalida kale loo weydiiyo way go'i karaan qofka inaan go'naan rabnaa inuu dhahane hadal dembia maaha hor dadka haroosigaas in maamulka puntland sida somaliland u aado wax oo naarta lagu galayo ma ah yaa lagu waafsan kow labo haddii somaliland dowlad ay noqoto ay puntland dowlad noqoto sida jabuuti ay noqonayaan dad soomaaliyeed oo dowlad leh waaye soomaalinimada ma ka baxayaan oo waa waxay u dhasheen laakiin dowladda soomaaliya iyo magacii dadkii ama oo soomaali ahay kuwa isku wata unbaad wax idinka dhexeeyaanoo asalkaas unbaad wadaagta marka ayaan ila harowsanin aniga hadda aniga xamaraan ku dhashay nin reer muqdisho ahay nin reer banaadir ahay nin reer galmudugaan ahay hadda haddii aan arko meel gooni ugoosta somaliland loogu mudaharaadayo waa tegaya because of dad waaye oo deegaan leh waxbay xaq u leeyihiin dastuurka u banaynaya dembi ma aha puntland naftirkood hadda dee mudaharaadaan ay dhahaan waxaasaan rabnaa sidaasaan rabnaa wax weyn ma ah soomaalidu unbaa u arkaysa wax weyn oo dhibaato dhacaysa mooyaane muhiimaddu waa dadku inay nabad haystaan dowladnimo inay haystaan inaan lisdhacaynin in sharcigu shaqaynayo dadku waxbarasho aadayaan taasaa muhiima cidda taa keeni kartana waa in lagu taageeraa wixii ay ka shaqaynayaan wixii kasoo haray iska daa war waaye warna wax ma soo kordhinaya aad u maastan suldaan hay زعيمو سؤاشي الربي إنه كويدي واليو ديري لكن سهل متقدم مهمة ماشان كسو بحيا ربعنا وحكا دوه هورتا الصومال نماذا definition أثارنو وصح واي أناقا سيدي نقود بصومال identity باترنا كهيسا تابو صومال نماذا وحا نقطة كار لبحيو وقف وبحن كارو وكاسار كار أم كوكسو علين كارو أناقا هذا ماشان أودي جوغنا ديجانا كلا دونا كإيمان انت مركا saarana annaga soomaalinimo isku sheegan karno si fiican dhigeysta inteena hadda meesha saaran waxaa ka kala imaana gobollo kala duwan ee qabaa'ilo kala duwan inaan annaga soomaalinaha ma isku sheegin marka uu nin oroma noo imaada amba nin ama xaari ah annaga soomaali noqonayna qoomiyada noqonayna annaga hadda qabiilaana dadka inay saas u fahmaan warto tusaale yar ku siina xildhibaanka marka la soo dooranayo qabiil way markii 275 lasoo dhamaystiro ee tagaan hoolka baarlamaanka ee tagaan la dhaariyo xildhibaanada Soomaaliya noqdaan horta si fiican wax u fahma xildhibaanada Soomaaliya firi maxaa la dhahaa
xildhibaanamadii baarlamaanka Soomaaliya laakiin marka la soo dooranayo maxaa leeyahay xildhibaanka qabiilka la soo doortaa leeyahay Soomaaliya waa wadanka waayo Soomaalina waxa waayo waa qoomiyad waayo annaga marka isla joogno qabaa'ilo kala duwanana mid waa Majarteen mid Hawiye mid waa Daarood mid waa Digil Mirif mid waa Jareer Weyne mid waa bahalka maxayto saasa u kala baxayna macnaha annaga ilaaha deegaanay ka dhigay ilaaha dhalashadana siiyay marka annaga la isku kaaya daro waxaana la dhahaa Soomaali wadankeena Soomaali waxa la dhahaa Soomaaliya qoomiyadda iyo waxa la israacsiiyay wadanka magaciisa tusaale Tigray gobolkooda ay qoomiyadda iyo qabiilkii magacooda iyo qoomiyadii wadankooda waa la israacsiiyay Tigray iyo gobolka Tigray la isku dhahaa Oromiya Amhara firi macnaha Soomaalinimadan identity-gan la bixinayo inta ka keen identity-gan la bixinayo waxa ka keenay waqtigiisii yar bare qofkii marka muxuu aaminsan yahay in Soomaalinimada la siin karo in laga qaadan karo qofka dad sharax dad qofku wuxuu ku leeyahay bahalka maxayto wadaniyad Soomaalinimo hadaa waxaan ruuxaan dadka gashay miyaa Soomaalinimada wax sheegay fasir dad ku fasiraya qofkii maxaa Soomaali maxaa la fasir dad ku fasiraya wuxuu u haystaa Soomaalinimada Xasan iyo Fiqi inay bixiyaan u haystaa macnaha iyo farmaajo iyo inay bixiyaan macnaha ayaga qofka uu ka saara uu kugu soo celina marka fadlan waxaa aamintaa qofka aad tahay ma jiro qof wakiilkaaga ah shakhsiyadaada wadaniyadaada Soomaalinimadaada dadnimadaada karaamadaada qofkaaga ee ma jirto Soomaali waxa la dhahaa qabaa'ilo isku tagay oo kugu celina Soomaali waxa la dhahaa qabaa'ilo isku tagay reerkaaga qaybtaasi kamid yihiin Puntland qaybtaasi kamid tahay Somaliland qaybtaasi kamid tahay Jubbaland qaybtaasi kamid tahay Galmudug qaybtaasi hal kelmadna waa rabaa inaan ku weydiiyo maadaama caaw Jaanis aad ku haysto hal kelmadna waa rabaa inaan idin weydiiyo hadda Djibouti oo kale dadka degan dadka dirta waa oo degan Djibouti degan waa ciisaha iyo gadabiirsiga waa lama dhahayo dawlad qabiil ah Somaliland dadka degan dadka ugu badan dirta waa iyagana artigana way la degan yihiin haddana lama dhahayo qabiila Somaliland degan مثال waxaan ka soo qaadaynaa kursiga Somaliland oo kale kursiga badanaa Somaliland nimanka isaaqa ah degan jooga jagooyinka ugu badan iyaga haysta haddana qof falaqeynay ma arkaysid xamar oo kale kursiga yaala marba ninka joogo oo hadda fiilada ku jira ugu tirada badan qabiilka kursiyaasha haysta oo Sacdi Bajaay waatii lagu xiray galmudug oo kale inta galmudug la dhiso dhan niman habar gidina madaxweyne ka ah haddana cid sheegaysa malaha dhibaatada kursiga Garowe yaala shaabada ay ugu dhagan tahay oo Soomaaliya oo dhan u falaqeynayaan waxa lagu leeyahay Puntland qabiilaa degan reeraa degan kursiga Garowe yaala hal reera isku bedela barnaamijkaas muxuu yahay Suldaano marka dhageysid أنا waxa u arkaa borta bisel maxay u shaabadeysan yahay barnaamijkaas maxaa loo shaabadeeyay waxa loo shaabadeeyay waxa waaye horta su'aasha weydiin lahaa ma faa'iisi dadkii hadday kugu kaceen ma in annagana dadka noo kicisa uu tala gashay dadkii dadkii iska basaray weysay waxa qaban weysay sodaa taas waa arrintaas ku aata war dadkii iska basaray ay wareerinay adiga hadda waa ku jeeda arrinta wal aaw Suldaan aa weydiiyay oo kale wala shaabada waa u jeeda ayaa taa waa raraya ka yeeli baari Suldaan inuu xeeladay ma kan galmudug laga hadlayo ari galmudug waa muqaddas oo taariikhti may waa muqaddas annaga waxa shaabada lagu dhajiyay bal hanoo sheego Suldaane horta maan faa'iizoy laba u kala qaadaa midna positive ka dhigaa midna negative ka dhigaa positive ka ku hormara horta waxa u arkaa dhanka positive marka ka fiiriyo in xogaa dadka markay nabadda ka badato ay degnaanshiyaha iyo nabadda ay gaaraan oo ay tarmaan oo xogaa waxa waaye aysan qaraxyo tira badan aysan arkin oo maskaxdooda mentally ay caafimaad gaarto baawur EU ku qoran tahay aysan arkeenin diyaarad Turki leedahay aysan arkeenin nin cadaan oo dhalasho meesha ku dhiganaya aysan arkeenin oo dadka cadaanka ayaga dalxiisayaal ay u yaqaanaan nabadda markay gaarto nin abwaana saaxiibana wuxuu dhihi jiray waxa hasaawo guri horumar la gaara kolka nabad la haysto macnaha damac waxa galaya rabitaanka noocaas soo galaya macnaha ilaan dadku waa la nasta mugta dhibaato lama arkaayo waa lagu koray 28 sano ninkii Puntland markii la asaasay dhashay maanta waa 30 jir wax uma dhiman 2 sano uga dhiman ma fahanti macnaha taas horta waa positive oo dhankaas ilbaxnimo ka arkaa aniga dadka inuu damaaciga noocaas inuu galo oo u arkaa
midda negative-ka ah oo aan ka arkaayo maxay tahay dhanka kale markaa ka fiiriyo marka negative-ka waxa waaye macnaha inay jirto macnaha codad ah meel ay ku qoran tahay dastuurka Puntland waa akhriyay meel ay ku qoran tahay ma arkin qabiil hebel ma tartami karaan laakiinse codad ah in naceeb qofku inuu qaado macnaha waana xanuun qalbi ah waayo oo liidasho qofku uu dareemayo in marka naceebkii uu gaaro marka in lagu soo adeegsan karo si ninkaas adiga walaalkaa ahaa isku dishiin oo maamulkan u burburo inaad dad kale usoo raacdid macnaha dee waa wax aad iyo aad macnaha bahalka maxay to macnaha u liito waay waxa kale oo hadda ziciim su-aasha rabay inaan weydiiyo waxay ahayd nimankiinan hadda annaga kursiga ku tartanno 1960 laga soo bilaabo inkastoo ay dulmi tahay inaan labadeena bes ku tartanno Soomaali dhan in lagu tartamo ay cadaalad ay ahayd laakiin sidii labadeena bes aan ku tartanno markaa fiirisid nidaamkan hadda federaalka aan dhisanay oo federaal hadda noo dhisan adinka maamulo dhisan iyo awood midaysan ma lihidin xuduudaha kuwa Kenya iyo Ethiopia iyo argagixiso iyo maamul aan midaysnayn oo hadda Jubbaland u dhaxaysiin 17 goobood oo kamid ah waxaa ku leh hadda Jubbaland oo kale 16 goobood oo kale waxaa saldhigyo ku leh Ethiopianka ku leh 15 kamid ah Kenyanka ku leh argagixisada qayb ay ka haysataa gobol dhan ay haysataa gida qayb ay ka joogta dowladii federaalka hadda madaxweynekooda dhamaaday dhibaato ka geesugaysa marka dhankaas maamul dhisan iyo dad midaysan ma joogaan dhankan galmudug markaa imaadid de galmudug ma gaarin de meel hadda laisku qabsada ma aha dadkii hadda reerka ugu badnaa hadda soo kala dhamaan laba ayagiyaa isku haystaba galmudug marka hadda gudihiin yaab soo kala dhamaan la oo hadda caabud waaq iyo dhankan kale iyo xoogaa dagaalma ka bilaabi karaan laakiin markaa fiirisid maamulka keliya ee reerkaas u dhisan ee hoteelo leh ee meel lagu shiro leh ee meel lagu sheekaysta leh ee meel loo dalxiistaga leh ee meel la fadhiista leh ee meel ganacsi ka shaqeeya leh ee dekada leh meeshii la rabo kulligood inay difaacdaan waxay noqotay maanta meesha keliya ee hartay ee fidnada la rabo in la burburiyo waa the only firi meel Kenya lagu hoos nool yahay meel Ethiopia lagu hoos nool yahay meel waxa waaye bahalka maxay to waxa waaye dhibaatooyin ka jiro koonfurta qaybihii kale iyo dad ay la degan yihiin meeshii keliya ee la rabay meeshii keliya groupna Xasan Furun uu geliyay oo nimanka Soomaaliland uu ku horgeeyay groupkii kalena ayuu gudahooda isku diray firi macnaheedu marka maxaa marka meeshii keliya ee u dhinneed ee inta cuqdadii ayaga shakhsiga ee qabeen xasan uga faa'iidaystay si meeshii keliya ee ku shiri lahaayeen ee fadhiisan lahaayeen waa maamulka keliya ee 28 sano ee waxbarasho dibadda ugu soo aadayeen maamulkii Soomaali kula fadhiisteen waa maamulkii nabadda ku haysteen waa meesha marka maanta laga burburna kulli way ku faraxsan yihiin maxaa keenaya marka waa cuqdada ayagu qofka marka muxuu dareemaa marka psychology ahaan marka loo fiiriyo muxuu dareemaa marka liidasho guduhu dareemaa wuxuu aaminsan yahay qofkan inuusan la saneyn oo aaminsan yahay haddana markaa dastuurka Puntland akhrisid kuma qorno meel ma arkaysid ay ku qoran tahay qof reer hebel wax ma noqon karaan aniga ma arkin waa sheegi waxa dhila war dastuurkan Puntland oo qabiila qortay dulmiyuuna ku qoran waxaan iska bedela aan dhihi lahaa mafahant hadda kan galmudug kuma qorno meel ku qoran yahay malaha kan koonfur galbeed kuma qorno waa akhri kulli waa akhri kan hirshabelle waa akhri kuma qorno haddana saas ay tahay reera iska qaadanayo reerihii kale meel la tartamaan may soo fadhiistaan أنا مركا أركت أنت تاسع وأركا سؤال زعيم الدين لنا تاسع وبحا وما سنتين وروايد halka iga soo dhawo hufan iyo mareeg iyo waa siinayna soo dhawaada ورأنا مدفع دي وايد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتها قولك كورساران يكون هوس فديبا مددر بان هوسنا إذا كده جيسني مركا كورنا هذا كرسي كم مدة كفدي مركا واحد بدن بعد دون بدن بعد مرسان ورب بدن يقوم يشيله لكن هل كلمة برا أنا كده بتوقع وقف كدواتشي أنا مرة هي نك ساي ما كقرنتها إنه يهاي كلمة تصوحي هاي موقف بس بنتي الآن كل لحيرة جوني قصت يسمار الآن هل كاسو كتورة وحير محي موقف كده عدان لا إياه وحيابها كلا إسكاي رفرن غير بانكو تردونا وأنا سوكو بيا dadka warka badan ma ihi laakiin markii la fiiriyo dhinacaas Puntland maxay barnaamijkaas uga yara gaabsatay waxay uga gaabsatay bay aniga aragtidayda kuma qasban inaad qof walba ku la geliyo laakiin waa aniga aragtidayda aniga weeytayda weey marka taasaan ku cabirayaa saaxiibayaal waxa weeye Puntland waa Soomaali dhulka Soomaaliyeed bay kamid tahay xorta dawlad deegaanadaas halkaas ku yaalo oo
systemka federaalka ku jiray ka mid tahay aragtida federaalka ah baana inta badan looga qareemaa aragtida federaalka ahayd baa marka baa wax ka soo noqdeen dadka systemkaas uu maaragtay dhistayna aragtida federaalka bay inta badan aaminsanayeen inay maaragtay dowladnimada Soomaaliya kaga qayb ahaan karaan dowladdii marka la horkacay oo 25 sano ka hor la kaxeeyay oo xamar la geeyay oo qaynuunka iyo dastuurka iyo labada baarlamaan iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo fulinta iyo nidaamka structure-ka ciidamada iyo systemka loo dhisay isla markaasna ay saldhigga u ahay maaragtay awood wadaagga system federaal ah oo hoos ka dhis kor u dhis ah systemka noocaas uu socon waayay wuxuuna dhibano u noqday dadkii ayaga ay ugu badisay inay federaal wadanku ahaado deegaankooda lagu shaqaynayay diblomaasiyiintu joogeen dowladda hooyadii abaha u ahayd oo ay dowladdu deganayd dadkii noocaas ayaa la rabay inay maanta ayagoo ay xabadka dowladda u garaacaan oo systemka dhaqaajiyaan oo dowladda ay wadaan oo ay horkacaan dadkii noocaas baa systemkii dhibana u noqday midnimadii iyo ummadnimadii iyo dalkii iyo qarannimadii ayagiiba ay maaragtay bay ka socon weyday Puntland waxay ka aamustay barnaamijka Somaliland markii la waayay wax loo dhan yahay dastuur dalkii difaaca baarlamaan dalkii difaaca madax dalkii difaacada golo wasiiro dalkii difaaca aragti qaran markii la waayay intii yareed oo wada joogtay oo la socodsiinayo oo federaal lagu socodsiinayo oo amniga siyaasadda lagu waday markii ay socon weyday Puntland inay ka fiirsatay go'aansatay waxyaabaha dhacaya micnaheedu ma ahan inaan ummadnimada iyo Soomaalinimada iyo dalka iyo dadka ka qoosanay laakiin waxa weeye waxa dhacaya hadda markii aan fiirinay oo aan ku qancin Puntland waxay go'aansatay waxa dhici doonana inay ka fiirsato oo iman doona ayadoo aan la ogeyn meesha bari la aadi doono bari waxa dhacaya maadaama hubanti la'aan uu galay dastuurkii hubanti la'aan galay dowladdii ay hubanti la'aan gashay federaalkii iyo systemkii iyo awoodii iyo balance check and balancegii iyo isu dheelitirnaantii dowladda iyo dalka iyo dadkii meeshii loo socdo dhan markay hubanti la'aan gashay midnimadii lagu dheelay badihii iyo dalkii iyo deegaanadii ay dee alla ku roon yahay ay noqdeen wax baylah ah aragti qaran ay dhimatay qofka wasiirka iyo qofka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddii dhanba ay noqotay ila meerayso meel ay wax u wadaan iyo meel ay wax ka wadaan midna bal aqoon waayay laga yaabo deegaano kale hor leh inay yiraahdaan maanta bari annaguna waa quusan ay dhihi karaan Puntland inaysan maaragtay ay dadka kamanaas ahaato bay go'aansatay inta midnimo qaran iyo ummad iyo siyaasad qaran laga helayo tub qaran inta laga helayo inta la helayo tub qaran oo loo dhan yahay oo loo maaragtay dastuur iyo federaal muxuu ah baarlamaan iyo dowlad goboleedyo iyo aragti dowladeed inta la helayo galmudug aragti kale dowladnimada inta la helayo hirshabelle aragti kale dowladnimada inta la helayo koonfur galbeed iyo jubbaland iyo muqdisho iyo dadka jooga iyo inta la helayo aragti qaran oo la leeyahay war dalkan iyo dadkan at least waxa ay ku wada joogaan hal la ilaaliyo midnimadan hal la dhowro Puntland kamanaas bay ahaanaysaa wax gaar oo ku gaar ayada ma jiraan taas intaasan kaga tegayaa waxaan u soo noqonayaa hufano intaadan halkaa kasii gudbin taada kale waa aadaysaa waxaan rabnaa adduunka wax jihayn la dhahaa jira dadka waa la jiheeya haddaadan la jihayn ummadda haddaadan jihayn adaa lagu jihaynaya Puntland waxay rabtay federaal waxay rabtay dimuqraadinimo 2012 markii miiska la wada fariistay laba arrin dood ku jirto la rabay in laga bixiyo si dowlad dhiska hore loogu wado in laga gudbo 4.5ka 2016 Puntland waxay ku doodeysay aragtida 4.5ka in laga baxo Cabdiwali Cali Gaas markuu joogay waxa kaloo dooda miiska saarna ahayd magaalada Muqdisho inay ku meel gaar tahay Soomaalina ay meesha isku raacday magaalo madaxa laga dhigi doono hadda doodii magaalada Muqdisho inay ku meel gaar tahay booska way ka baxday oo cid ka doodaysa magaalada Muqdisho dastuurka hore noo qorna inay ku meel gaar tahay ma jirto aragtidii 4.5ka ahayd oo markuu Cabdiwali Cali Gaas kursiga haayay lagu doodayay tribkan hadii 4.5 lagu doorto tribka ka dambaysa baarlamaanka dambe waxa lagu soo xulayaa deegaan lagu soo xulayaana meesha way ka baxday oo xasan waa kii shalay dhahayay 4.5 kan waa sii jiraya marka maxaa miiska Puntland u saaran labadii ay wadada dastuurka qabyada ahaana waa la tuuray federalismkana waa la tuuray waxa dambe ay gadaal ka fiirsanayso ay sugayso maxay tahay doodadeedii oo dhan waa la soo xiray waa mahadsantahay intaas horta dastuurka iyo dalka iyo dowlad dhiska
muddo hadda galmudug hadda waxay jirtaa tusaale ahaan 23 sano Jubbaland waxay jirtaa 18 sano kuwa kalena waxaan u maleynayaa min 12 bay jiraan isteediyada kale Puntland markii ay dhisaysay oo aan Eldoret la joogay I think inay markaas 7 sano jirtay Mrs. 7 sano jirtay markii Eldoret la joogay dawladda Cabdullaahi markii la horkacayay sidoo kale waxa ma 9 sano markaas jirtay sidaas role weyn bay ummadda ku lahayd diblomaasiyadiina door bay ka ciyaaraysay oo dalka in siyaasadiisa la xasiliyo iyo dastuurkiisa iyo warqaybsigiisa iyo wardalkii ummadii waa hubaysan tahay waxyaabo noocaas markii dastuurkan la qorayay oo dastuurka la sameeyay oo dastuurka ku meel gaarka la sameeyay oo xamar ergooyin ku fadhiyeen Puntland 12 sano joogtay bay markaas ahayd dastuurkii noocaas ah naf iyo maal la geliyay oo aragtida la ururiyo ergooyinka la ururiyo arinta kale oo ah dastuurka Puntland ba xam garow waa lagu qoray garow wani garow waxaas aragti jirta ma aan anagu kama naas baan ahay miiskan gees ka fadhinay ummadda Soomaaliyeed oo aragtida leh baan kamid ahay markii aan halka joognay aragtida tiraahda Puntland ba dastuurkan laga keenay Puntland ba qortay Farola keensaday iyo waxa noocaas wax jira ma aan waana wax ay tahay qof kastoo aragtida Soomaaliyeed iyo dawladdiska Soomaaliyeed meel kaga jira inuu waxaas u ka waantooba fiican anagu kama naas baan ahay miiskaasaan gees ka fadhina aragtida iyaduna waxay ahayd aragti federaal dadkuna qaybna waa nagula socotay qaybna waa nagaga soo horjeed markii dambana dadku soo aragtiba ka noqdo waxaan war ugu yaraan maaragtay dalkan meel ha loo dhaqaajiyo dawladdan meeshan ka jirta anaga shaqo nooma qaban dawladnimadana shaqo noogama qaban adeeg nama siiso amni nama siiso waxbarasho nama siiso caafimaad nama siiso waxba nama siiso wax ay burburiso ay naga dhibaataysan ma ahan wadanka xamar baa laga kala goynaya marka inta wadanka xamar laga kala goynayo oo aanan ogeyn meeshay aadi doonto berrito xaaladdu anagu kama naas baan ahaanayna waxa soo haray jahaynta ummadda doodii su'aasha aan ku weydiiyey way ku garab martay fiiri doodiinaan oo madhalayska ah wadaan oo la ordaysaan waxba nalama siin wadaan ma aha waxa meesha yaalo waxaan ku iri 2012 miiska waxba idiin saarnaa waxa la dhaho federaal waxa la dhaho dimuqraadi baa miiska iyo midnimo Soomaaliya miiska idiin saaran midnimadii Soomaaliya way kala dhaqaaqday oo nimanka reer Somaliland waa tashteen midda labaad federaalismki booska waa laga bixiyo dhasta biinka lagu riday dastuurkii ay wadateena dhasta biinka lagu riday wax dooda oo ilaa hadda idiin furan ma lah idinka la idiin soo dhaco tunka la idin hayaa oo halka la idinku dhagan yahay oo lugaha ka mirigsiinaysa maxaa qorshe ama ogta qorsheenu inuu calaacal uu miiska 24 saac kanaan dhisay wax la dhahay ma jirto maalintii Soomaaliya ku meel gaarka ka baxday ilaa hadda halka tunka waxa la hayaa niman Puntland la dhaho wali Puntland oo tunka wax qabanaysa ma arag marka ma waxaan ku haynaynaa oo miiska noo saarnaanaysa inta sii joogayna inta waa lagu diiday inaad joogtid ma joogay sida lagu dhameesha aad joogtid adoo taagana waxa lagu leeyahay waa lagu handadayo waxa lagu leeyahay ciidamaan kugu dhex dhistay kuwa ka badan aan kugu dhisaya kana kugu sameynaya marka waxaan rabaa su'aasha inaan ku weydiiyo cabashadan iyo calaacalkan intee in la eg baa wadaysaan intee in la eg baa cabashadan iyo kanaan ahaan jiray iyo kanaan dhisay kana ii dhiman xamar waa laga diidaan ku dhah federaal xamar waa laga diiday dastuurkii qabyada ahaa ayaa loo ordaysa xamar waa laga diiday adiga wax option oo kale ma haysataa waddo kale ma haysataa ku baxdid su'aasha idin weydiinaa taas waaye reer Puntland ay rabaan inay ka cararaan ma carari kartaan marka waa in hortaagan waayahay doodaas dood anigu aan qabo weeye waxaana jeclahay inaan waqtigeeda ka dhigto oo waqtigeeda waa dhow yahay laakiin dee haddaad rabtay inaan taas hadda binixiyo aan raad u bixiyo waxaan u malaynayaa reer Puntlandku waxay kaga duwan yihiin Soomaalida inteeda kale hal aragtiyo ah siyaasadda iyo systemka waxa hadda socda xukuumadda ayaa wakiil uga ah xukuumadda ayay tahay inay raad u bixiso markay shacabka timaado shacabka ayaga waxa laga rabaa inay la yimaadaan aragti ay dawladda ay accountable ugu noqonayso oo ay wax ku weydiinayaan oo wax ku su'aalayaan shacab weynaha Puntland cidda ay matalaada u dhiibteen oo ay tahay siyaasadda inay u jaangoyso oo ay tahay inay aragti ka yeelato dawladiskii burburay federalismkii dastuurkii waxa maanta la yeelayo meesha maanta la taagan yahay inay dalka iyo deegaanadaas meel uga dhaqaajiso oo dadka hor kacdo oo ay raad u bixiso oo ay ur u bixiso horta waa xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni uu maanta hor kacayo iyo golihiisa wasiirada iyo golaha baarlamaanka iyo intii kale wax garada ayaga maanta waxa laga rabaa ayagay horta la ku badiye inay maanta dalka iyo dadka ay jiheeyaan oo Soomaalida inteeda kale oo miciinka u baahan oo maanta Xasan Qoorta wax uga furfuro iyo Xamse
cidda maanta u baahan baydhaba ay sugayso galmudug ay sugayso hirshabelle ay sugayso xamar iyo kismaayo ay sugayso waa reer puntland ayagaa la rabaa horta inay aragti dowladeed iyo mid dad la yimaadaan hadday la imaan waayaan adlistooda inay u tashadaan baa laga rabaa taas anigu si cad baan u leeyahay kama leexleexanayo mana qaba in laga leexleexdo laakiin waxyaabo kaloo ay tahay assignment kaloo fara badan baa hoos yaallo ay tahay inay kasoo shaqaystaan oo fara badan oo amnigooda uu ka mid yahay hadda nin markii dabeyle soo dhacdaa la yidhi ama fira soo dhacda ninba ishiisu sacabka saaraa baa la yidhi maanta ayagay hoos taallaa geed harweyn baa inta hal gubtana waa hoos taallaa marka horta bal ayagu ha iskiliin gareeyeen maanta dad aan matalaad deegaan lahayn xildhibaan ahayn wasiir ahayn agaasime ahayn siyaasi ahayn xisbi ahayn axsaab ahayn nin qori wato oo ordaya baa meel walba maanta puntland taagan marka reer puntlandow anugu ma garan nimanka wasiirada iyo xildhibaanada iyo ahoo waaba laga yaabaa inay inta mikrofon soo hor istaagaan ama ay dood qabtaan ama tv soo istaagaan laakiin ninaan xildhibaan ahayn wasiir ahayn agaasime ahayn xildhibaan qof aan xasaanad lahayn xil lahayn oo xidigaha garbaha ugu xirana loo siiyey inuu dalka ku difaaca laakiin asagu maanta cadowgii iyo intii isagaba maanta khatartii ugu weyneyd ah oo laga baqaya inuu ciyaalka iyo gabdhaha iyo islaamaha iyo dadka shaybabka uu barakiciyo marka puntland waxaa laga rabaa inay siyaasad kala timaado amniga inay siyaasad kala timaado dhaqaalaha inay siyaasad kala timaado dowladiska iyo federalismka iyo doorashooyinka iyo inay siyaasad dowladda Saciid Cabdullaahi Deni uu horkaxayo baa waxaa laga rabaa inay qorshe kala timaado aragti cusub oo cad oo la yaqaano oo la raab qaadi karo oo la garan karo oo lagu garab istaagi karo baa laga rabaa inay kala timaado waa dowladda kaliya oo dooran oo mandate haysata oo maanta joogta way puntland giiga Soomaaliyeedba ma garanaysaa marka ayaga waxaa laga rabaa anigu kolley dee maadaama ay waqti haystaan ma jecli inaan dee ku meeraysto marka taas aragti kale ay hartay oo ah aada u maasantahay ninka la yiraahdo haye ku socda mareeg waa kugu soo celinaa raalli iga oo intaa su-aalaha kuwa weydiiyey mareeg soo dhowow xilli dambena way noo tahay meesha waa iskaga sheekeysanaynay gruubkiina waa naga tageen suldaan iyo saa'im iyo soo dhowow may waa dhowahay niyow waa idin salaamay dhammaantiin aasiyana gooniya u salaamay qofka keliya aan ka arkaayo wadaniyad soomaalinimo aasiya aan ka arkaa wallaahi daacadayna iga tahay adigana afkaartaada waa fikir dhaba oo waasac oo hadda jiro su-aalaa weydiisay ninkaan la yidhaahdo hufane waxaa tiri maxaa kaaga qorshaysa wax kastoo wadatay waa lagaa diiday maanta dhan meelow ku gagabaday dhagax madaxuu ku qaatay darbiyada wuxuu ka jawaabo waayo markaasoo kale markii dambe wuu sheegay markii dambe waa sheegay maya waa la isdhiibaa waxaa la yidhahdaa annaga fikriya maqadkaa ka tegey mise waa aniga labadii wax u dhexeeya male maya qadbiga tegin haddaa ku maqlanaha marka niyow soomaalinimada waxaa la siiyaa keliya qofka soomaali jecel soomaaliya ahay laakiin soomaali mareego haddaa su-aalku weydiiyo aduu soomaalinimada ma waxa u taqaanaa xasan in la taageero xasan keliya in la taageera soomaalinimada u taqaana maya deniyaan taageeraynaa waxaan taageeraynaa xasan cali khayre ninka markaas noo joogo ee wax la yaqaan noo samaynayo wixii uu ballan qaadayna oo bannaanka dhigay kaasaan taageeraynaa laakiin ninku haya ani boqoraan ahaa jiray madaxtooyada anaa keenay war madaxtooyada waxay noqon kartaa cadale waxay noqon kartaa meel kasto madaxtooyada waxaa la yidhaahdaa meesha madaxweynaha ku shaqeeya xafiiska madaxweynaha aa la yidhaha madaxtooye ma ahan dhismaha ku yaallo wardhigley micnaha madaxtooye inaa fahamtiin waay madaxtooyada ageynay ma aha micnaha dowlad haddii la magacaabo ay degto kaaraan dowladdii madaxtooyadooda waa kaaraan caasimadda laysku raacay ayay caasimad ku tahay fere talyaaniga waagii hore florence magaalo la yidhaha caasimaddeeda torina loo bedelay kabacdi roma loo bedelay micnaha meesha laysku raaco waay waxaa ogoshihiin meesha laysku raaco in caasimadda laga dhigi karo ama laakiin ma ogoladiin baarlamaanka meesha isku raacay inuu dastuurkii ansixiyo ma ogoladiin kaas waa qalad lacaguu siiyey intuu ka dhacay alladii waxaana ogoshiin hadday isku raacaan xildhibaanada baarlamaanka markay soomaaliya oo dhan dadkii hal mar inta la wada keeno ma la dhahay
وعضي عفتي واجرتها عفتي لو قدبناي أو ليه سان رالي مكتين madaxda muqdisho xildhibaano baarlamaan uma codeynaayo mareegay dadka Soomaaliyeed u codeynaya dadka Soomaaliyeed idinka horta dhibka idin haysato waxay tahay sharcigii oo dhan gacanta ku qaadaysin fiiri baarlamaanka fiiri magaala madaxda muqdisho fiiri inaad qaado markaa dhameeyo waqti yar haysta qaado adiga fiiri markii baarlamaanka oo codeeyo oo dhaho muqdisho caasimada laga qaadaa garow la geynaa markaas aftil loo qaada horta inaad fahamtid waa sharciyada maaha in dadkii la dhahayo intee rabtiin qof wuxuu dhahaa baydhabo qof wuxuu dhahaa barko qof wuxuu dhahaa garoowe maaha baarlamaanka u codeynaayo baarlamaanka markay u codeeyaan saddex qaybood laba qaybood marka ay dhahaan magaaladaas laga dhigaa kabacdi aftil loo gudbinaa ma rabtiin in laga dhigo jowhar ma rabtiin in laga dhigo baydhabo dadkaasaa markaas lagu go'a waxay sameeyaan taas sharciga oo qoran dastuurkeena saas waay marka niyahow su-aashii waa weydiisay ninka la yidhaahdo hufane maanta waxay iska tidhaahdaa war aniga raaciyaa noqona wixii lay keena iska qaadana maadaama aan tala haynin iyo tusaale iyo waxaan ummadda Soomaaliyeed ka gada aan ahayn waa ka xumaa inay degteen nimanka la yiraahdo saacim iyo suldaan inay degteen laakiin qof la yaqaan oo Soomaalinimo laga faa'iidi karo hadal xigmad laga faa'iidi karo waxaan u jeedaa oo kaliya wallahi ilaahay iga sareeyo gabadhaan caasiya leeyahay ilaahay ha dhowre marka niyow Soomaaliya ninka maanta Muqdisho joogo iyo ninka Garowe joogo isku aragti dowladnimada uma arkaan ninka Muqdisho joogo wuxuu aaminsan yahay inuu horumar aan weligiis aan arkin oo arkayo wuxuu u jeedaa in doorasho one man one vote baa socdo wuxuu u jeedaa EVs in wadankiisa lagu soo galaayo wuxuu u jeedaa in shidaal oo soo socdo wuxuu u jeedaa daxgacmeed in Soomaaliya ay samaysanayso wuxuu u jeedaa diyaarado dagaal oo casri ah inay gurigiisa niyo anna horta mareego diyaari ma nooga sheekanaysaa adeerka Xasan Xilki waa ka dhamaaday حسن علكي وكذا معه هذا حسن قالنا يعني الصومالي قالنا هذا حسن وبحى بريتو وحل دورنا ويسل بوي اي دونت كير هذا اللي قال يا امه الصوماليه وحي ما انت وكلا تاغنتها وادر حسن هذا دغيس هذا حسن واغو هره سان بالهين ونولاهي نافر ما جان اسك بخن ميشا نينكاس بركا سارنو جوغو نبد لا اركي ماي مسكاس مدو وحواي درسنا لما اهن وأفرتي سنة واحدة ما استهزئ ربنا عم بقى فربع وحكرا مجرى أبي وحكرا كم سنة كورا ما شو ليس تضبط طبعا فرماجك وقول جرى توفيق أبو مايس دورة شهادة مايس أدوك ورتابح دقوم بحن قار كاين قايلك دافي ما خوفك سرك دمي إسل هذا قرح يد بواد دوشان واد سينا فرماجة هذا بها أوجاد والله بالله طلع شيخ شريف هذا كوردا ورواكم من تدينا نحرب قوي ربو أفر عنقود دل إنه نوعدك صدربو أو قرابدين إنه كهذا الشيء ربو والله أنا نغرق اسكول الجري ها حدا ماشي أنا مرسا قراودي ريبوت لان قراودي لو أديك annagana waxaan leenahay wasilo ninna annagana waxaan leenahay ninna cirib goyn rabo oo gurigeena u soo socdo oo afar wiil oo dhadhela noo soo adeegsaday arroy waa iska qabaynaa alxamdulillah وسيلو حاجة فيديو ولا حاجة يقصد دري سوا رباية ورويسيلو ما يستاهل بس فيسبوك أكارك فيسبوك عندك عارك ويسيلو ما يستاهل حبوك جرا إيش يا كان هلا هذه والله يبدو كجرا ير بشير ليرا بشير محمود ير ليرا كجرا فقال لي بشير محمود ليرا ويسيلو فايز ودر عندنا ما يستنى لبدي الدقيقة أي لبعض دقيقة ما يسايي
bal yaasiinna waa siinayna yaasiin haye horta dhamaysaa Beere. dhaqso caasi waa ku salaamay waa dhamaysanaa fiiri xasan niow madaxtooyada jooga ilaa laga helo madaxweyne bedelo taas waa isku dhacaysanaa maano qof diidaa baa jiro marka xasan baa naga tago doorasho aad kaarka niira oo lagu keenay qaado muwaadin soomaaliyeed inaad tahay cadday kaarka niira ma aha xasan iska laha adaa iska leh waa kaarkaaga muwaadin inaad tahay waa diiday doorasho one man vote lagu keenay waa diiday marka xasan adigaa ku haaya meesha intaas haddaa ogolaatid doorasho ogolaatid kaarka niira ogolaatid kaarka codobixinta ogolaatid intaas haddaa ogolaatid berita doorasho lagaaga dhigaa laakiin haddaa diido xasan 30 sano kuu fadhina may intaas haddaa ogolaano soo sida aadan madooba kale isku doora maayo may sida aadan madooba waa hab Soomaaliyeed caalamka ka jirta adaa noo soco intaas haddii la ogolaado aadan madooba soo baxay xasan oo xasan isku caarasho waa soo baxay maya aadan madoobe waa maamul goboleed ma ahan Soomaali dhan ma matalo markii Soomaali dhan madaxweyne matalayo waa doorashada guddigeeda doorashada waa la bedeli karaa systemkaas farsamo waa la geli karaa laakiin waxaan laga gorgortami karin doorashada banaacada kaarniina ba qaadanay xisbi isdiiwaan gelinay anoo boorso ta imaana madaxweynaha noqona taas waa soo dhamaatay haddii aad weli ku fikiraysiin waa iska riyo kartiin laakiin inaad seexatiin aa loo baahan yahay marka niyow waa maasata aqliga maya aasi banooda aan bisi cambaar bay noo qaatay cambada ba joogtay yaaska caaw dhan saarnay dhacay misana soo laabtay yaasiina ma joogtaa cambar waa ku salaama waxa waaye ha waa riyoonaynaa anaga riyaan ku jirna riyo ma aragtay riyo aan dhammaanaynaa ku jirnaa wuxuu ku leeyahay kaar liira aan qaadano war cadaalad ma jirto oo garsoor ma jiro doorasho heshiis lagu yahay ma jiro Soomaali kala daadsanana oo wili 4.5 ku jirto markaasuu ku leeyahay doorashaan aadayna kaarka niira waa wadaniyadaadu cadayna ID kaar waay ma ahan doorasho waa ku dhageysanaya cawada ma hadli karaa bisle intaas jaanaysi adigu marban in laga dhaxgal ma jecleen marka waxa fiican aqliyada inay shaqeyso dadkeena waxay ku leeyihiin wax baan baranay haddana beeshan waxa isla aniga aan ka dhashay waxa baranaya dad heer magaal oo ilbax oo tagay oo jiraal daa'uud ay ka dhasheen salaad kabeere iyo dad wax garad ay ka dhasheen laakiin waxa ogaaday inaan joohla ka dhalnaa ogaanada wallahi bil maxamed saad barre iyo wardadkan muxuusaan lagu galaa maxamed muxuusaan ka wada adijin waxaan ogaanay inay qabiilada beesha u gafin iska siyaasad ka hadal war walaalo waa hadashay aamus ma hadli karaa aniga hadda waxay tamay hadda ayne ma yaa ku dhageysan karo wisil ma iska hadalnaa mise waa aamusnaa tayanaadeen ninka halkiisa u bax waa isla dooxayana asaga ah kama xigtidi yani muxuu yahay isla kama xigtidi ha siyaasadda foosha xun ku socdaan ka canaanana isla waxaan laguma aqoon maanta waxaad ummaddii aad ka dhaadhicinaysaa ummaddii in dictatoriyad la geliyo la qasbo maamulada lagu duulo cadaaladii gees la mariyo garsoorka ma taasaan qaadanaa macasri jaahiliya u soconnaa maanta gobol baa lagaa karahaystay ummaddii kuma rabto waa ka tarbiirgelisay hay-ad dowladeed kuma noolo shacabkii aad ku duulaysaa maanta waa ka Puntland waxaa lagaa rabay iyo dadkii walaalaha ay kula dhashay maslaxad iyo dowlad inaad hore u wado quruxa ka dhaliso maxaa ka tagaysaa maanta shalay farmaajaad waxaa ku cabaadaysay ma soo noqonay farmaajo allaha naga dheeraya dhiis adaa maanta ilaahay naga kaa dheerayaan taagana annagoo kula dhanaa ilaahu naga kaa dheeray ku taagan farmaajo wili tolkiisa ma dhehayna aniga tolkii aan ku dhehayna ilaahu xasan naga dheeray dulligaan allah naga bixiyo waana khiyaanaan taagana anaga dowladnimaan rabnaa quruxaan rabnaa Soomaali wada quslaysaan rabnaa maanta ma taagno war dowladda ay sheegaysa basra ma tagi karto shabaab cashuurta ka qaadato waa balcad ay ka tirsan tahay ya oo ma tagi karto joori dhexdeeda ma mari karto ba intay ka baxdo shabeelle jawharooba diyaarad u qaatay intuu xamar ka baxay fiiri jawhar iyo dhexdeeda uma socon karno ma waxaad noo sheegaysaa qiyaali aad noo sheegaysaa shabaabkii maanta xamar waa carraa fiiri dadkaasoo kale noo keenaysaa waxaasoo kale wiilal qurux badan oo kheyr allaha siiya dhegaysanaynay oo xataa hawiyaha u dhasho anaga nala mida runta say uga hadlayaan siyaasaddan runay u baahan tahay
war maanta dhulkan sirdoona ku tartamay wax kale iska dhaaf shabaabaa laga celinaya kuwii maanta yamana laga celcelinayo xamar iiraantiya xamar laga celinayo waxaa kaloo kaaga sii daran abudabey iyo yuhuud dhinac isku wataan turki iyo qolo kale dhinac isku wataan etoobiya dhinaca inaga guminaysaa ugandheeso intaas milyan gaaraya waddanka dhinaca ka buusanay maxaana marka ii sheeg marka ummadda khiyaaraya in laga daaya fiican mugta iska dhaafay kaniisadaha naga dhex furan sharmuutooyin iyo dhilooyina naga dhex abuuray balaayaan ku soconna markaasaa waxaa lagu leeyahay waa tagnay waa biibnay doorasho iyo liiraan qaadanayna walaalay waan dhegeysiga xamar nabad waa yaasiin nabadda xamaraa diidantahay nabadda xamaraa diidantahay yaasiino xamar nabad waay dal xoreyaa noo xoreey maxaa rabtaa marka eeboowe war xamar aniga dadkaygaa jooga tallaabo baahiyaa loo dhimanayo adiga nabadaa sheegaysaa baahiyaa loo yaasiino waxaa sanadka aragnaa wallaahi baahiyaa loo dhimanayo wallahi dadkii iska dhaafee nolol ma haystaan ase waxaa loogu daragalay waxa la yidhahda interlog oo tabartooda aan ahayn niman ganacsatay iyo waxaa noo tashteen iyo ganacsatada lacagay ku rabtaa interlodka iyadagaa keeneen wadanka warshad lagu sameeye ma taala yaasiin ninkan wuxuu u keenay concreteka firi concreteka ninkan wuxuu u keenay inuu businessku sameeyo gorlaysaan xagjir noqotay aniga ilaa ayaantaan haddaa iga maqdeen dagaala ku jirtay qofka la dhaho wisilow ayaantii horeeto dad maanaaba la dagaali jira hadda